salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono xaaladda ka taagan qolka lebiska ee kooxda Manchester City. mar kale isku soo noqod wanaagsan. Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheynayo inuu kooxdiisa Manchester City ka hor xil ciyaareedka soo aadan uu ka fasaxo 7 ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah. kooxda labadii xil ciyaareed ee la soo dhaafay hanatay horyaalka Premier League ee Man City ayaa 22 dhibcood ka dambeysay hogaamiyayaasha horyaalka Premier League ee Liverpool, waxaana hadda ay sheekadu tahay inay Man City ka fikirayso inay sii xoojiso booskeeda ay ugu soo baxayso tartanka UEFA Champions League. kooxda muwaadiniinta ayaa suuqii xagaaga kooxdooda ka dirtay Angelino, kaasoo aaday wadanka Jarmalka kuna biiray RB Leipzig bishii Janaayo. sida laga soo xigtay jariidada The Mirror, mustaqbalka xidiga kale ee kooxda ayaa shaki weyn ku jira ka hor bilaabashada xagaaga dambe. Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheynayo inuu kooxdiisa Manchester City ka hor xil ciyaareedka soo socda ka fasaxo xidigaha John Stones, Benjamin Mendy, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Joao Cancelo iyo Nicolas Otamendi, kuwaas oo wax qabad liita soo bandhigay fasal ciyaareedkan. kabtanka iyo halyeyga kooxda David Silva iyo goolhaya Claudio Bravo ayaa sidoo kale la rajeynayaa in kooxda ka tagaan maadaama uu qandaraaskoodu dhacayo. warbixinta ayaa intaa ku daraysa in macalinka reer Spain ee Pep Guardiola uu qorsheynayo in uu 5 ciyaartoy ku soo diro kooxdiisa xil ciyaareedka 2020 ilaa 2021 si ay kooxdiisu mar kale ugu soo laabato tartamida horyaalka Premier League oo ay xil ciyaareedkan si awood leh ugu guuleysan karayso kooxda Liverpool.